wanaagsan daawadayaal ka soo dhawaada barnaamijka fanka iyo suugaanta ee Puntland TV oo si toos ah idinka imaanaya stuudiyaha Puntland TV ku leeyahay magaalada Nairobi waxaana barnaamijkan toddobaadkan noogu martay sida arkaysaan qaar ka mid ah xidigaha reer Nairobi ee Maxamed Deeq iyo waliba nimco Habbi oo barnaamijkan naga qayb galaysa markaasina aan aad ugu mahad celinayno sida barnaamijkan nooga soo qayb galeen dhamaantii ku soo dhawaada marka hore barnaamijka fanka iyo suugaanta. Thank you aad mahadsantihiin aad baan idinka gudoonay sida noo soo dhaweysay aad wayahay marka ugu horeysa bal aan soo dhaweeyo marka ugu horeysa dhankayga midig aan ka bilaabo Maxamed Deeq marka ugu horeysa Maxamed Deeq soo dhaw Puntland TV walaal walaal aad u mahadsan tahay waan ku salaamayaa maxamedow bal waxaad nooga warantaa bal in yar oo kooban oo taariikhneedkaaga in yar oo kooban aad u fogaaneen kulli ku dhimayno taariikh fog bal in yar oo kooban fankan waa kulli anaga daadirta cusub aas ka jirnaa adi 2013 bal ayaan ku soo biray fanka ilaa haddana waa ku jiraa marka adi muddo 3 sano ku jiraa fanka 3 sano waayahay nimco waxaan ku weydiiyey bal intii aad fanka soo jirtay kulli marka qofku dhalin yahay caqabado badan baa fanka soo food saara ma xasuusta caqabad ka soo food saartay fanka oo aad hadda ka gudubtay maya wallahi last year aan ku soo biiray maxaan ku raadayay fanka 2015 bishii shanaad waxaan ka bilaabay oo fankaygu kow ahaa 18 May aan masax afuule igu horeysay dadku way sheegtaan caqabado oo macnii dhanka fanka kaga soo fool yeeshay laakiin anigu kala ma kulmin ilaa haddana wax dhib ama meel kooban baa laakiin qaabka oo sheegtay fankaagu kooban yahay laakiin haddana heesaayo qaabka marka la fiiriyo dabcan fankaagu meel fog ha macnii fanku waa fir aniga family-gayga waxay u badan yihiin abwaaniin dabcan su'aash ila dhalatay oo abwaanad weyn ah xalwo bilxan cali kulana la dhahaa maxaan ku raadayay gabayga yamyam gabadha ka jawaabtay waa walaashay aniga ila dhalatay macnii fanka marka saas ayuu macnaa anigana igu soo duxay way kulli su'aal baa ku weydiin lahaa in aad hidda raacayd oo fanku uu kugu soo raacay dhanka hiddo iyo waliba in dhanka qaraabada laftooda heesi jiray inuu ka soo galay laakiin dabcan dhanka qaraabada ka soo galay marka dabcan hadii fanaanimadii oo ehelka uu ka ag dhawaa caqabaduna iska yaraanaya ka soo saaraya wallahi wax caqabado macnii maanta aan kala kulmay ma jirto intaan hadda fanku jiray macnii 9 bilood camal aan hadda ku jiraa fanka heesahayguna waa xoogaa waa badan yihiin haddana wax dhiba muusik caqabad ma arkin abwaan caqabad ma arkin wallahi just way bal inta marka horeysa intaan ku fogaanin su'aalaha iyo wareysiga intaan ku fogaanin mid kamid ah oo heesaaga oo daawadayaasha u soo qaban lahayn noqon lahayd heesihii hore mise kuwa cusub kuwa hore uguma soo talagelin laakiin kuwa cusub baan wadaa waxa adoo dhan new ah way waxa la yiraahdaa halka aad ku sugan tahay kala soco fariimaha wax dheer bay tilmaamaysaa dabcan waxaan ku soo dhaweyn doonaa codka halaasiga Habbi iyo waliba heestaasi codka halaasiga noogu luqeyn doonto daawasho wanaagsan
sababta keenana ma sifan karaaye halka ku sugan tahay kala sooco fariimaha waxa sababta keenana ma sifan karaaye halka ku sugan tahay kala sooco fariimaha halka ku sugan tahay kala sooco fariimaha dadkan kula simanahay jacaylkii ka suray haddii uu sidan yahay dadkan kula simanahay samir baan ku leeyahay haddaad seexan weydo jiifka aad ka selashana samir baan ku leeyahay samir baan ku leeyahay waxa sababta keenana ma sifan karaaye halka ku sugan tahay kala sooco fariimaha waxa sababta keenana ma sifan karaaye kala sooco fariimaha halka ku sugan tahay kala sooco fariimaha waxaa ka dhacay halka aad ku sugan tahay ma sifayn karaaye kala soco fariimaha dabcan waa ereyo meesha ugu dambeeya dhihi karnaa dib baan ku soo laabanaynaa nimco soo dhowo marka labaad maxamed soo dhowo haddii maanta aan ku dhaho maxamedow meel fankaaga kusoo barbaarin lahayd oo aad ku noolaan lahayd maxay noqon lahayd ama dalkii ha ka mid ahaato ama dibadda ha ka mid ahaato walaa dalkaa jeclaan lahaa heeso weli dalkii oo wadani ama ka qayb gasho waan ka qayb galay hees waxaa jirtay xataa u qaadnay puntland last year waxaa sameeyey al-ustaad axmed naaji sacad miraha iyo laxankaba asagaa iska lahaa iyo muusigaba aniyo fanaaniin kala qaadaynay hodan africa xasan cagaar fanaankeenna walaashay iqreyrey iyo ustaadka ayaan nala qaaday heestaasna puntland aan u qaadnay dabcan waayahay intaynan su-aalaha daawadayaasha aynan ku badin hees ka mid a heesahaago aad soo qaban lahayd waxaan ku bilaabayaa heestii ku aan qaaday ahna curadeeda aana heestii leeguna anamisay aniga hadda maxamed abukara la dhahaa laakiin balse dadka magaalada iyo adduunka dhan baad waxaa laga yaqaanaa maxamed bariido soo heesta bariida ayaan ku bilaabayaa heestaas oo ah curadeeda mirahana waxaa suubiyey abwaankeyga ayadaa lagu macdaray marka mirahana waxaa suubiyey abwaankeyga shucayb cabdinuur
aad baan u salaamayaa laxankana waxaa ii saaray macalinkayga ustaadkayga jinni ishumi muusigana waxaa ii tumay xasan wajeer cabdimi aduna codkaaga meel inta loo tagtay ku saar way waxaan soo qabanayaa heesta codka halaasiga leh ee maxamed deeq iyo heesta bariido daawasha habboon wayahay waxba ka dhacay dabcan aanu halka kaga soo laabano codkaasi halaasiga ee maxamed deeq mar labaad baan ku soo laabtay xidigta nimco haye thank you bal hadii warantaa ma jirtaa fanaan aad isdhihi jirtay fanaankaas meesha uu joogo maalin weynaad gaadha haye allahu naxariisto fanaanadeena weyneed xalimo qalif noqon ma sha Allah heesaheeda iyo bal inaad baraatir garayso kale qofku waan garanaya markuu doonayo wax inuu sameeyo ama inuu qolkiisa dhexda isku xiro waxba ku qaadanaysa qofku baraatir garayo wallahi anoo aad u yar oo da'daydu jirto ilaa
sagaal sano ama 8 sano aan u dhaxeeyo aan waxaan jeclaan jiray heesta qaado maxaan ku raaxay ma qalif maqool laakiin fanaankii la qaaday hadda ma xasuusan karo waayo waagaas fanaaniinta si fiican u kala laakiin maamadaas alla naxariis janna ka waraabiyo maama qaran bay ahayd naxariis janna alla mar labaad iyo saddexaad iyo mar afraad baa ka waraabiyo aad baan u xiiseeyay aad anaguna inta kale dabcan sinay jeclaan jiray heesta qaadi jirtay waxay ahayd waana hubaayo ما شاء الله ما شاء الله way haya jacayl way haleelayo wila hade laba heshiisaha hadday kala hadaan ama wasilmaaban الله يعيسك الله يعيسك طبعا بلا موسيقى قرح بدين بأريادة إن طبعا أنا مركز سوق قبانيا دوخيا دوداش سوق قبانيا يس ودور له أوكي يس لحكي رئيس كله واحد سميي عبدي فارح نور جرين وحمر شوقة لحن كانوا حساري حميسته عن آدك وشعلهاي وذا النولة موسيقى أنا وحتم محنكر هذا كفر من يستي محمد برشاوي هاديات يعدكاي هي ود هستي هوري عن قاضيني محمد هلك أدك سوقنته كلا سعر فريمها وين اللوني وحس كلا أبوان كي عن آدك وشعلهاي أحمد شيخ حشي وكنا نقربها لحن كانوا حصار لا صار لا حميسته يقوين عبد المدلع عيسى هاديات الله يعيسك إن طبعا وحنسوق قبانا يا هل هذا الكوميتشرو موسيقى واحد مي بشاوي هاديات وحنسوق قبانا يا هاستا قول يا ولي بعدك هلاسي له فناندا حديقتا نمعو حبي دا وشو هبان وحيا جيرك يا لفتي
waayahay iswaan soo hel noqo dabcan qof gaar ah lahansaan cusub wallaahi heestani aniga waxay meel bay ku qusaysaa taala gabadh saaxiibtay ah abwaankay u timid abwaankay waxay ku tiri abwaan qisadeeda uga sheekaysay abwaankii kadib wuxuu fahmay macni wax iyada ku saabsan abwaanku maba garan dadku ka turjumaabaan isii macni saan anu u fahmay marka gabadhii qisadeedii baa laga sameeyay heestan waana gabar saaxiibtay waxayna u eg tahay heestu ina aniga iga sii hadlayso aad dabcan waa la wadaagaa dhibaatadan qof markay taabato dabcan qof kale ay taabato inuu jira dabcan halkaas ay saameyn qofka ka yeelanaysaa waayahay dib baan kuusoo laaban doonaa maxamed deeq soo dhow mar kale bal waxaad noo sharaxdaa aan ku weydiinaya inta badan qofku markuu doonayo in fanka kusoo biiro isaga laftiisu wuxuu jecel yahay fanaaniin qaar inuu codkooda qaabka heesooda maarata fanaaniinta hore aad dabcan ma jirtaa fanaan aad xiisayn jirtay inaad heerka ku joogo inaad joogtid waad jirtaa yaa fanaankaad aadka u jeclahay waxaa waaye xasan ali samatar aan taageero qaasna u ahay ilaa yaraantiina isaga iska jeclaa bilaa haddana ibn hataa hesiis hadda waa qaadaa uu qaar dabcan markaad qofka doonaysa heesiisa inaad xiisaysiyo qaabka kale waa dabcan qayb baa ku saameyn kugu yeelanaysaa hees ka mid a heesaha maxay noqon lahay kole daawadayaashu ma jecla hadalka badan waxay jecel yihiin in heesaha loo ciyaaray mid ka mid a heesaha noo soo qaban lahay istaan soo wado hadda waxaa waaye qurux jacayl waxaa soo biyey ereyadii abwaan dhagajila andashii dhagajila lahanka waxaa ii saaray ustaadkayga macalinkayga jinni ishumi muusigana waxaa ii tumay xasan ujeer cajime waa heesta qurux jacayl waxba ka hadlaysa laakiin halkaa u dhaafi mayno waxaan soo qabanayaa heesta qurux jacayl iyo weliba codka halaasiga leh maxamed deeq daawasho wanaagsan
حسوستا قروة حسوستا وقيمينا يأوغو اسكاتكو قرنك دحديسا اياكو قروة حسوستا قروة حسوستا وقيمينا يأوغو دايدا كوغلاتو وفاقو قرصونه وحاتا عقالي ميان كابوسا كريا كابوسا كريا ميان كابوسا كريا دايدا كوغلاتو وفاقو قرصونه وحاتا عقالي ميان كابوسا كريا كابوسا كريا ميان كابوسا كريا ان وياي ميان ka qusan karaya waxa ku weydiinaya bahalkan laga qaylinayo oo jacaylka uu leeyahay wal maar tartu soo ogyahay hay soo ogyahay hawka foto wax madow lama aha cadaan male casaan male midaba male wax ma shaydaan ba muxuu shaydaanna ma aha wuxuu kuwa abuurmaya adiga kuma sheegay waqtigu ku galayo waa cumlays sifadu laha inaad dhubayso ma intaas midna ma laakiin ilaa hadda sifadiisa la waayo ilaa hadda sifadiisa ma hayo laakiin wiil walaalkay ah oo hadda maqan oo jira wadanka Australia hadda ka hor hees ka sameeyay hees waxna markaa hees waxa tilmaanaysa kullu soo yahay wuxuu caashaq walba xasaan ku egyahay ma wax ciiro joog la cadaan iyo buluug la ما waxaan caruur iyo ciroolo midna aan cisayn ba wax saas ah heesto ma xasuusto aadiya intaas dhanba bicsiya dhahaynaa in heesaha dabcan adiga qofku markuu heesa qaadayo si ubadkiisu waalidku kala jecel yahay heesa u kala jecel yahay hees ma jirta adiga ku saameynayso oo والله إلا يا هذا هس أنا كإسامين سو يقاسم سو قادم ما يودن بيسا معني ويشرت مثلا دتكو إريو أو دتكو برسنية ويشرتي هست أنا وحيدها كقوس قولي إذا قرتي أهيد ويشرتها أنا يجاري أهيد هس هذا عن قاعدة أما بعني معني أن إسكالي أنا هست أنا كصوب حيوان وشعله هذا داب تكلمين ما تذكرن بقى بتشعل dadka la wadaaga dabcan dadka qofka daawanaya qofku hees ku booriyo heesu la wadaaga qofku taageero uu ku helayo marka qofku inuu jeclaado hooyay heesta dhankaaga la socon lahayn noqon waxa la yiraahdaa heestan ruuxdan ku dhiiban lahaa waxa sameeyay abwaan dalka Ingiriiska ku nool jooga abwaan Cabdullaahi Ali waxa la yiraahdaa madoobe laxanka waxa saaray miir laxamistaawina reer Hargeysa muusiga waxa tumay macalinka kooxdayda Fandisban ina soo saaray ما هذه إباه كجادة عبد أبيب أحمد عبد يره وهذا سفر در نوغا مقن هرجيسة أصلا ماشي سانكو سلامة يا روح ذا محقولي سوا كديس مايا والله كل روح ذا كودي بالنا واري معني عجيب أنا قلفت هيجا مال بدنقص هاي أديات تابنا إن هركات أي كنت بقصي بل عند وضع داونا إن هستاس نمعه يولي بقى روح ذا كودي بالنا توشونا Ruuxdan ku dhiiban lahaa haddaan ku
عشق ديليغا كدو عشق ديليغا كدو waxaad ku darsataa maxamed deeq kale qaybiyada barnaamijka ku jirnaa bal xitaa salaam si aad ka faa'iideysanaysid shaashada Puntland TV marka hore awalan waxaan salaamayaa xaaskayga aadka u jeclahay Nimco Axmed Nuur Salaad Nimco Degan iyo wiilkayga Qadar waxaan salaamayaa dhammaan familkayga oo dhan marka xigtana waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay adduunka ka joogaan gaar ahaan waxaan u salaamayaa shacabka reer Puntland caawa nacsimaada inoo fadhiyaan TV-ga Puntland يا قاسمين نشينة يو كاميرا مانكنا كورنتو هذه هذه السلامة يا دمانتي هذا ما سنتي أنا عشمادي أنا قصو أجيبتي أنا بقى قاعد مسيس horta dhammaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kasta ku noolshahay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu markii xigta waxaan salaamayaa adiga marka koowaad marka labaad waxaan salaamayaa kaameramannkayga marka saddexaad waxaan salaamayaa asxaabtayda khaaska ah waxaan salaamayaa gabaraan eedow ahay amiish la dhaho gabar walaashay ah iyadana Caaisha la dhaho ku xig waxaan salaamayaa hooyaday macaan oo ku nool dalka Hargeysa waxaan leeyahay hooyo macaan meeshaad ku salaaman tahay waxaan kala salaamayaa labadeeda gabdhood Yusra iyo Darajo aan salaamayaa dhammaan inta magacayga muuqayga taqaana familygayga inta dibad jirta iyo inta dalka joogta waxaan kala salaamayaa musishinkayga weyn Cabdi Habiib Axmed saaxiibta Yurub oo xaaskiisa ah oo hadda safar nooga maqan gudoomiyahayga Bilgurfe iyo kooxdeeda hadda cusub Asalbaan dhamaantood meel kasta ku kala maqan ama ay joogaanba oo dhammaan salaamaya gaar ahaan waxaan si salaamaya xidigaha geeska oo leeyahay salaamu alayhi calayk daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayna barnaamijka fankiisa suugaanta ee toddobaadkan oo Puntland TV oo idinka imaanaya stuudiyaha Puntland TV oo ku leeyahay magaalada Nairobi waxaan barnaamijkan idin la socodsiinaya anigoo Maxamed Shiine waxa ay kala qayb galay dabcan u mahad celinayna Nimco Habi iyo محمد ديق وقتنا نهد علينا نقول قايب كلين ومحمد شيني يدوم بعد بدلان تيف ku dhaafaya nabad geliyo